qayb galay markaa munaasabad xisbigu RBB uu ku xusayay dabaaldeg aad u ballaaran oo lagu xusayay 40 guuradiisii waxaa la soo casuumay oo kale axsaabta siyaasiga ah ee dalalka ay saaxiibka yihiin ka mid yahay dalka Itoobiya oo 3 xusbi ay ka soo qayb galeen dalka Rwanda iyo Somaliland xusbiga kulmiye intaas ka soo qayb gashay iyo xusbiga shuuciga ee dalka Shiinaha oo madax sare waliba ay ka timi arrinkaas aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad leh madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti isla mar ahaantaana ah gudoomiyaha xusbiga RBB xogayaha guud oo isla mar ahaantaana ah wasiirka maaliyadda wasiiradii kale iyo madaxda xusbiga waxaan la kulanay wasiirka daakhiliga iyo taliskiisa ciidamada booliiska si aad iyo aad u ballaaran ayuu noo soo dhaweeyay waanu ka wada hadalay wasiirka maxaan ku dhahday arrimaha nabadgelyada ee labada dal iyo qaabka maamulka iyo nidaamka xuduudda inoo dhaxaysa waxaanu kala waftigoonu la kulmay oo la qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle si aad iyo aad u ballaaran buu noo qaabilay si wanaagsan buu noo soo dhaweeyay madax sare oo dalka ka mid ah wasiirada iyo xusbiga iyo baarlamaanka ayaa shirka ku weheliyay waanu uga mahadnaqnay casuumadii xusbiga uu madaxda ka yahay lagu soo casuumay Djibouti waxaanu kala ka wada hadalay sidii labada dal ay isu kaashan lahaayeen xagga dhaqaalaha xagga nabadgelyada iyo xagga bulshada intaba axsaabtii ka soo qayb gashay oo dalka Itoobiya iyo dalka Burundi iyo dalka Somaliland intaba waxay ka hadleen in loo baahan yahay oo laga maarmaan tahay in la horumariyo oo ay wada hadlaan axsaabta afkaaraha siyaasiga ah saaxiibka ka ah iyo kuwa dalalka jaarka ah in laga wada hadlo xisbinimada iyo sidii axsaabtu u yeelan lahayd xidhiidh iyo sidii looga shaqayn lahaa horumarinta iyo dhaqaalaha inahaas socdaalkeegu ahaa madax badan oo kalena waanu saragnay alxamdulillaah rabbil caalamiin dowladda Djibouti guud ahaanteed